waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa bandhiga TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay sida ay maanta u dhacday dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble oo ka qayb galay weerarna ku qaaday madaxweyne Farmaajo hadaba maxay ahayd fariintii uu diray ra'iisul wasaaraha xilliga ugu horeeyay ay fariisanayaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo la shaaciyay kadib markii ay si ku meel gaar ah u doorteen guddoon cusub iyo shirqoolkii loo dhigay Fahad Yaasiin oo u muuqda mid guuleystay madaxweynaha Jubbaland oo ka guuleystay Villa Soomaaliya kadib go'aan culus oo uu qaatay guddiga doorashooyinka heer federaal kaas oo ku dhawaaqay in doorashada gobolka Gado lagu qabanayo magaalada Ceelwaaq sidee ayuu noqon doonaa xaalka madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roblena waxa uu taageeray go'aankii guddiga doorashooyinka si degdeg ah ayuuna u amray in la dedejiyo doorashada Gado oo lagu qabanayo Ceelwaaq wararka kale waxaa kamid ah abaabul xoog leh oo ka bilowday magaalada Muqdisho iyo mucaaradka oo bilaabay inay dejiyaan qorshayaal ay ku galayaan doorashada iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed oo afka furtay taageero weyn u muujiyay Fahad Yaasiin xilli uu weeraray ra'iisul wasaaraha dalka qodobadaas ayaad ku daawan doontaan waana khamiis taariikhda ku beegan tahay 14 bisha afraad ee Abriil sanada 2022 mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhaarinayay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa shaaciyay inay maanta dhaariyeen ilaa 290 mudane kuwaasi oo isugu jira xubnaha golaha aqalka hoose iyo sidoo kale xubnaha markaasi aqalka sare ee baarlamaanka ee federaalka ah ee Soomaaliya munaasabadaas lagu dhaarinayay xildhibaanada ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble kaasi oo halkaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo inteeda badan u muuqatay mid uu markaasi ku weerarayay ama uu ku dirayay madaxweynaha ee waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna markaasi ra'iisul wasaaruhu halkaasi ka sheegay arrimo badan iyo caqabado badan oo uu kala kulmay dhamaystirka doorashada balse waxa uu sheegay in arrimahaas oo idil hadda uu ka gudbay isla markaana uu arintaasi aad ugu faraxsan yahay ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku booriyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya inay gutaan waajibaadka loo igmaday ee ka saaran danta iyo sidoo kale danta guud ee dalka waxa uuna markaasi kula dardaarmay in waajibaadkooda si hufan ay u gutaan ra'iisul wasaaraha ayaa dhowr jeer markaasi soo hadal qaaday hadallo u muuqday mid weerar ku ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha ayaa maanta ka farxashay arrimihii ku saabsanaa doorashada dalka waxa uuna u muuqday mid fariintiisu ay ku socotay xildhibaanada si gaar ah in uu kala hadlayo in markaasi dalka laga badbaadiyo madaxweyne Farmaajo haddaba markii ay soo dhamaatay dhaarinta xildhibaanada guddoon ku meel gaar ah ayay doorteen xubnaha markaasi baarlamaanka cusub ee Soomaaliya sidoo kale waxaa la shaaciyay xilliga ugu horeeya ee baarlamaanku uu markaasi fariisan doono kulankii munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka qabsoomay Afisyooni ayaa la soo gabagabeeyay goor sii horeysay iyada oo labada markaasi xildhibaan ee ugu daada weyn loo doortay guddoomiyaal ku meel gaar ah gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ayaa loo doortay Cabdisalaan Xaaji Liibaan oo loo yaqaan dhaban cad halka gudoomiyaha ku meel gaarka ah aqalka sare loo doortay Maxamed Cali Yuusuf Gaagab gudoomiyaasha ku meel gaarka ah ee labada aqal oo goobta ka hadlay ayaa shaaciyay in maalinta Sabtida ah ee soo socota ay xildhibaanada yeelan doonaan kulamadooda ee markaasi ugu horeeya xildhibaanada labada aqal ee golaha shacabka ayaa waxa hor yaala shaqooyin adag oo ay ugu horeeyaan doorashada guddoonka labada aqal iyo midda madaxweynaha waxaana laga dhursugayaa sida markaasi ay u maareyn doonaan guddoonka golaha ee markaasi shacabka iyo sidoo kale golaha aqalka sare wagaag wararkeena kale ee xiisaha leh haddii aynu sii eegno guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay qaateen go'aan culus oo markaasi dhabarjab ku ah Villa Soomaaliya waxa ayna war ka soo saareen halka lagu qabanayo doorashada Garbaharey guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID ayaa ku dhawaaqay galabta in doorashadii 16 kursi ee magaalada Garbaharey loo wareejiyay magaalada Ceelwaaq ee isla gobolka Gado guddiga ayaa sheegay in go'aankan uu gaaray kadib markuu arkay inay laga maarmaan tahay in 16 kursi ee taala Garbaharey in aysan ka harin hanaanka doorashada dalka xilli maanta la dhaariyay xildhibaanada cusub waxa uu sidoo kale sheegay guddiga in ay caqabado ammaan ku horgudban yihiin in ay doorashada ku qabsoomto Garbaharey isla markaana maamulka Garbaharey ay diideen in xubno ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay ku tagaan booqasho markaasi loogu kurgeli lahaa in la soo hubiyo xaaladda amniga magaalada Garbaharey waxa uu intaasi ku daray guddigu in guddiga go'aankiisa ay qayb ka ahayd markii uu arkay cabashooyinka beelaha kuraastooda taala magaalada Garbaharey
markuu guddigu garowsaday inaysan suuragal ahayn in ay doorasho ka dhacdo magaalada Garbaharey waxaa laga maarmaan u noqotay in meel kale oo dalka u dhaxaysa amnigeeda sugan yahay la helo. Guddigu waxa uu go'aamiyay in doorashada Garbaharey laguna bedelo in doorashada lagu qabto magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Wararkii markaa maalmihii u dambeeyay la isla dhexmarayay ayaana sheegayay in markaasi guddigu ay qorsheynayaan in tallaabo noocaasi ah ay qaadaan. Isla daqiiqado kadib markii guddiga doorashooyinka ay warkaasi shaaciyeen waxaa taageeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Injineer Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha dalka ayaa qoraal uu markaasi soo saaray waxa uu ku soo dhaweeyay go'aankii guddiga doorashada heer federaal deegaan doorashada uga wareejiyeen magaalada Garbaharey. Qoraalka ka soo baxay ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu bogaadiyay go'aanka guddiga doorashada maanta ka soo baxay ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo loogu wareejiyo doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo taala. Ra'iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya baa la yiri xaqa matalaadda dalka ee markaas waa ra'iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya xaqa matalaadda dadka gobolka Gedo iyo ahmiyadda dhamaystirka doorashada waxa uu bogaadinayaa soona dhaweynaya go'aanka guddiga doorashooyinka VID ee ku aadan deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble oo qoraal soo saaray. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku booriyay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland iyo kan markaasi federaalka in si degdeg ah ay u dhameystiraan kuraasta dhiman ee doorashadooda markaasi loo wareejiyay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Haddaba arrintan ayaa waxa ay markaasi dhabarjab weyn ku tahay maamulka Villa Soomaaliya waxaana markaa la sheegayaa in madaxweyne Farmaajo arrintan uu ka soo hadli doono isla markaana uusan aqbali doonin. Inkastoo guddiga FID iyo guddiga markaasi SID ee Jubbalandba ay markaasi gacanta ugu jiraan ra'iisul wasaare Roble oo ay markaasi mowqifkaas ka wada siman yihiin ayaa haddana waxa markaasi jirta in Villa Soomaaliya ay iyadu mar waliba isticmaalayso awoodo kale oo ku saabsan sidii ay kursigaas amaba kuraastaasi caqabad cusub amaba arrimo ay u horkeeni lahayd. Madaxweyne Farmaajo arrintan ma ahan mid markaasi uu aqbali karo isla markaana waxa uu doonayaa in uu markaasi faragelin xoog leh ku sameeyo. Marka taxliilin lagu sameeyo meesha ugu fudud ee hadda u furan madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay tahay in uu isku dayo in uu kiciyo bulshada gobolka Gedo amaba uu abaabul ka bilaabo qaybo ka mid ah degmada Ceelwaaq oo halkaasi ay xiisad ka soo cusboonaato si doorashada markaasi caqabad cusub ay ugu gudboonaato. Balse waxaa la filayaa in maamulka Jubbaland ay dadejiyaan howlahaasi. Madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe ayaana u muuqda mid markaasi isagu ka guuleystay arrimihii ku aadanaa xiisadii ka dhalatay doorashada gobolka Gedo oo ay markaasi si weyn isugu hayeen madaxweynaha Soomaaliya. Waxagaag saaxiibayaal qaybaha dambe ayaynu isla soo gaarnay. Ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Dabageed ayaa weerar culus ku qaaday ra'iisul wasaare Roble. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ah ku-xigeenka Hirshabelle oo shir jiraa'id markaasi qabtay ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka dalka isagoo weerar culus oo toos ah ku qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble. Dabageed ayaa si adag uga hadlay dooda ka taagan kursiga tirsigiisu yahay Hob 86 kaas oo doorashadiisa lagu qabtay magaalada Beledweyne isla markaana uu ku soo baxay Fahad Yaasiin waxa uuna sheegay in kursigaasi loo maamulay si sax ah ayna doorteen ergada markaasi beesha iska leh kursigaas. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha in uu markaasi caqabad ku yahay dhamaystirka doorashada isla markaasna uu abaabulayo xiisad siyaasadeed. Ra'iisul wasaaraha lama canaanta caanihii daadiyay hadduu isleeyahay lama leh wax dhibaato oo doorashada caqabad ku ah isaga ahayn ma jiraan ayuu yiri. Yuusuf Dabageed ayaa hadalkiisa waxa uu ku daray in Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ay dhibanayaal u yihiin ra'iisul wasaare Roble iyo guddiga FID sida uu markaasi hadalka u dhigay. Hadalkan ayaa waxa uu markaasi ku soo aadaya iyadoo xalay qoraal ka soo baxay Hirshabelle looga dalbaday guddiga FID iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble in la fasaxo kursiga Fahad Yaasiin balse ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale guddiga FID ayaa arrintaas ka dhiga adeegaya waxayna doonayaan in Fahad Yaasiin kursigaasi nooc kasta oo loo dhaafin karo markaasi loo dhaafsiiyo. Waxagaag daawadayaal guud ahaan warkii oo kala socoteen shabakada Bandhiga TV intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. wararkan warar la mid ah intaynu mar kale dib ugu wada kulmi doono dhamaanteen isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad geli